mas-uuliyiinta iyo hoggaanka ugu sarreeya xisbiga mucaaradka ah ee waddani ayaa xarunta guud ee magaalada Hargeysa ee xisbigaasi subaxnimada saaka ku soo dhoweeyay mas-uuliyiin iyo xubno hore uga tirsanaan jiray xisbiga xaakimka kulmiye kuwaas oo shaaciyeen xisbigaasi ka soo baxeen kadib markii ay sheegeen inay ku hungoobeen taageerada ay hore u geliyeen xisbigaasi mas-uuliyiinta ayaa sidoo kale carabka ku dhuftay in hadda wixii ka dambeeya taageeradooda maan muruq iyo maalba isugu geyn doonaan xisbiga waddani mas-uuliyiintani oo hadalka iskaga dambeeyey ayaa dhammaantood ku dheeraaday inay ku soo hungoobeen taageeradii xisbiga kulmiye hadda kadibna ay u soo digarogteen xisbiga waddani iyagoo sheegay in ay jiraan shakhsiyaad kale oo ka dambeeya waxaana ay ku booriyeen mas-uuliyiinta xisbiga waddani inay sii xaadhaan laabaha ay ku qaabili lahaayeen dadkaasi soo socda iyagoo arrimahaasi ka hadlayana waxay yidhaahdeen dhammaanteed wax iska leeyahay allaha ina siiyey xisbiyada maanta aynu doonayno kaanu diinaba aynu ku kala dooranayno waa ammaanka dalkeena maanta ka jira qofku wuxuu diidan yahay inuu kaga baxo inuu markaasi xisbiga u arko inay danta iyo dalka ku jiro inuu tegi karayo kuu arko inuu dalka dumistiisa iyo baabiisa wadana inuu markaa kaga soo horjeesto waa arrin wanaagsan waa arrin aynu hore u samaysanay waa arrin maanta aynu u joogno midho dhalkeedii haddaynu eegno maxaa keenay inaan maanta kaga soo baxno xisbigii kulmiye oo muddo dheer aanu hayn yaa dadka taageerada weyn u haya weliba nimanka abaabulayaasha ugu waaweyn aanu ka mid ahayn waxa keenay waxa weeye waxaanu lahayn inaanu meel baanu aan higsanaynay dalka ayaanu doonaynay horumarkiisa maanu doonayn inuu dalku halku maanta marayo uu dib ugu noqdo maanta maamulka jooga iyo haddii bukurooya madaxweynaha jooga waxaan filayaa mudane xirsi cali xaaji xasan xitaa inaan aan ka badiyo oo nin iga yaqaana aanu jirin shakhsi ahaan baan u aqaanaa faamili ahaan baan u aqaanaa kuwa maanta loo tiriyana waxba kuma qabaan waxaan waxyeelo ahayn iyo dhibaatooyin kuma qabaan cidnaba uma roona naftiisana uma roona naf kalena uma roona hadday sidaa tahay xisbiga qaranka ee ballaaran ee waddani haddaanu nimi anigu aanu soo jeedinayaa uun madaxda xisbiga guddoomiyaha xisbiga musharaxa iyo ku-xigeenaysa xogeeyaha hogaamiyihiisa dadkii waa soo socdaane u diyaargarooba oo laabtaa ku qaadi lahayn dadka sii bannaysta kulmiye aanu intii dee la shaqaynaynay oo dhisaynayoo dee dagaal kula jirayo hiil iyo hooba wixii dee aanu qaban karanay aan runtii la qabannay isku canaanan mayno inaanu halkaa intaan ka tago oo laba gaari ka haysto faamligayga ciyaalkayga qaado oo aan garada ka soo codeeyo oo muse aan u codeeyo iskumaan canaan runtii haddeer isku canaanan maayo markaana ceebi baan arkay laakiinse waxaa ka soo gadaal maray sidii dee wixii uu odaygu sheegayey fartii ragga dadkaa farta eeday ayaanu ka mid ahay aniga ciyaalkayguba waan xusuustaayo ciyaalka hungaacay ku wada waasheen wallaahi qof aan hungaacayni ila waa ciyaar oo 16 jir aan weyn magaalada ka bixin tabeetana hungaac waxaan xusuustaa uu stiil yarkii saan u dhibay iyo saan fartayda u aadnay arrintani ayaa ku soo aadaysa xilli shirweynihii guud ee xisbiga mucaaradka ah ee waddani uu qabsoomayo dabayaaqada bishani kaasoo dib loogu dooran doono hoggaanka xisbigaasi waa Khadiir Qowdhame wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA magaalada Hargeysa hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Soomaaliland haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees tayo waa Telesom